maanta waxaan kulankan u qabanay dhowr arrimood oo isku sidkan maadaama ay tahay maalintii 3 May oo ah maalin runtii ay isugu yimaadeen dhacdooyin kala duwan oo ay kow ka tahay maanta oo dunida laga xusayo maalintii saxaafadda iyo sidoo kale maanta oo ay ku beegan tahay geeridii Allah u naxariistay aasaasihii hay'adaha qaranka madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed xaaji ibraahim cigaal geeridiisi sidoo kale bishan guud ahaanteed waxay ku suntan tahay bishii lala soo noqday madaxbannaanida Soomaaliland 18 May 1991 runtii arrimahaas oo dhan iyadoo ay ku beegan yihiin maanta sidoo kale ay tahay maalmihii ugu dambeeyay bisha soon waxaan shirkan jiraad u qabanay runtii duruufaha kala duwan ee siyaasadeed dalka ka jira oo aan u aragnay inay lama horaan tahay runtii in aan wax ka iftiimiyo waa markii koowaad muddadii la magacaabay xilka xogayaha warfaafinta aan sidan oo kale madal maanta warbaahinta iyo bulshada Soomaaliland runtii uga hadlo waxaana kalifay ama sababay runtii hadaladii u dambeeyay maalmahan ka soo baxayay mas'uuliyiinta xukuumadda qaarkood maadaama ay tahay 3 May maalin dunidu maanta si weyn u xusayso in madaxbannaanida saxaafadda iyo xorriyadul qowlku ay noqdaan mid madax bannaan oo si aan baqdin lahayn warbaahinta iyo muwaadiniinta dunida ku noolba ra'yigooda u cabiri karaan runtii waxaan u aragnaa anigoo ka jawaabaya baaqyada kala duwan ay soo saarayaan hay'adaha qarankan qaarkood sida warbixintii u dambeysay shalay Human Rights Centerku ay ka soo saareen 4 biloodkan 2021 iyo sidoo kale daraasaadka ama xog ururinta ururka Soldier laftiisu ay soo saareen oo ku saabsan runtii intii 4 bilood imika sadka laga joogo dhacdooyinkii saxaafadda ee dhacay runtii in xisbiga wadani uu la qabo maanta ama uu la wadaagayo saxafiyiinta Soomaaliland inay tacadiyada ama dhibaatooyinka ku dhacay muddadaas 4 bilood ay soo saareen hay'adahaasi oo runtii hay'adaha qaranka xoogaala ururiya daraasadeeya kiisaska saxaafadda kuwaas oo isugu jira runtii kuwa loo maray nidaam sharciya iyo kuwa loo maray nidaam aan sharci ahayn marka xisbiga wadani isagoo ka duulaya runtii dastuurka Soomaaliland iyo xeerka saxaafadda waxa uu la qabaa cabashada ama baaqa ay ka soo saareen ka dhanka ah in hay'adaha dawladda ama mas'uuliyiinta qaranka loo xilsaaray ay kula kacaan saxaafadda waxaan ognahay in wasiirka wasaaradda warfaafinta si cad uga hadlay dhawaan xariga lagula kacay ama xariga lagula kici doono musharaxiin ka tirsan axsaabta mucaaradka runtii waa markii koowaad xukuumaddu si toos ah uga hadashay arintaasi waxa uu arkaa xisbiga wadani arin aan ku haboonayn hanaanka maanta aynu ku jirnay ah doorashada oo runtii loo baahan yahay in dhinacyada laga istaago in wax dhibaateeyo ama carqaladeeyo runtii aan lagu kicin وين وجنا الظروف المشرحين تمان ترتميسا عدين نقطة شروطها أي حركة كحدين إن وحيابا بدن يظروف فر بدن لسوا مرسي أي ولي بحكومة أي ولكت دتك أي صوّد مرين أما أي كسر ولا جود بين أنتوا دي بدني يدو أي شريان دين عوال برنتي وحيابا أنت بدن إن ده لقى قرصني هسه شو حنوارنا جوابت وكبحي وزير وزارة الرافنت in ay tahay mid lagu dhibaateynay ama mid lagu carqaladeynayo musharaxiinta axsaabta mucaaradka iyo xisbiyada runtii mucaaradka ah maadaama ay doonayaan inay hantaan xaqna ay u leeyihiin runtii inay ka qayb galaan tartankaasi in aan la carqaladeyn ama waxaan maanta munaasib ahayn oo laga soo gudbo runtii in lagu xanibo ama lagu hor istaago sidoo kale in loo maro nidaam aan sharciga waafaqsan runtii xisbiguna hore uga hadlay anaguna maanta taa ta'kiidina waxaan leenahay maadaama oo dalkani sharci leeyahay in nidaamka sharciga loo maro cid hor istaagi karta ama cid diidi karta ma jirto hase yeeshee in xoog iyo awood iyo propaganda xisbiga xaakimka ama xukuumadda maanta talada ay u adeegsato runtii waxaan aragnaa inay tahay mid majara habaabinaysa nidaamkii doorashooyinka abuuraysa runtii in walaaca isa soo taraya runtii uu sababo in xaaladda musharaxiintaas runtii ay noqoto mid walaacida leh oo aan lagu kalsoonaan karin runtii waxyaabaha qaarkood maadaama oo maanta dalkani doorasho gelayo in badan loo samriyay in doorashadaas la galo dhibaatooyin fara badan loo soo dulqaatay
waxaan u aragnaa wasaaradda warfaafinta maadaama mas'uuliyadda iyo saxaafadda ay saaran tahay in qaladaadka dhacaya ee hay'adahaasi soo saaran runtii ay tahay kuwa gaf ku ah ay tahay kuwa in ay ka joogsadaan ay tahay maadaama oo runtii sharciga dalkan ay si waadax u damaanad qaadeen xoriyada qowlka dadka muwaadiniinta iyo hay'adaha saxaafadaba runtii haddii ay noqoto in dambiye la isku soo foqo ama la is eedeeyo maanta cid wasaaradda warfaafinta ama mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta maamusha ka eed badan ama loo soo saari kara dacwado kullidiya runtii ma jirto mid baan ka soo qaadi kara dunida maanta idaacadu waa waxyaabaha halabowlaha ah dalalka dunida marka la inqilaabayo waxa laga inqilaabaa idaacadaha waxaanay dalalka dunida runtii culays ka saaraan sidii ay idaacadooda u ilaashan jireen ama u ilaashan kari lahayn si aan loogu inqilaabin ama loogu afgambiyin waxaan ognahay maanta oo dhacdada aan taaban karaya ay tahay sanadkii 2020 miisaaniyadda qaranka Soomaaliland waxa ku jirta in qaranka loo soo iibiyo idaacad qarankan in idaacad loo soo iibiyo ayaaba ku jirta idaacadda qaranku lahaa ilaa hadda meel ay ku miyaantay ama meel ay ku dameysay lama garanayo xukuumadda wasiirku kow ka yahay waxa ay ku bixisay qandaraas bilaa sharci darra ilaa hadda qandaraaska idaacadaasi cilsi iyo meel ugu bixin toona lama garanayo shacbiga Soomaaliland haddii dib u xasuustaan khudbad sanadeedkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee golayaasha baarlamaanka uu ka horjeediyay waxa uu ku sheegay ama ku xusnayd in lacag 500 kun oo dollar ah qasnada dawladda ay ku celiyeen waxaan weydiin lahaa wasiirka lacagtaasi 500 ah ee uu madaxweynuhu khudbad sanadeedkiisa ku sheegay xageebe ka timid waxaanu ayna oo cad oo aan maanta indhala iska qarsanaynin in wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo xukuumaddu qandaraas bilaa sharci darra ku bixisay idaacadaasi lacagtii lagu bixiyayna taa tahay uu madaxweynuhu ku sheegay in uu qasnada ku soo celiyay isagoo madaxweynaha iyo wasiirku toona ilaa hadda ummadda u cadaynin lacagtaasi siyaabaha ay ku bixiyeen iyo lacagtaasi siyaabaha ay qasnada dawladda ugu soo noqotay iyo qadarka lacagtaasi inta ay ahayd iyo inta ka maqan waxaan u aragnaa in mas'uuliyiinta markii la xisaabtami waayay ay noqotay in wax badan ay ummadda ay ku bahdilaan in haddana ay ku sii wadaan maalinba maalinta ka dambaysa in ay ku toga qumsadaan ama ay dantooda ka fushadaan iyagoo u arkaya runtii inaan dadku indhaha kala haynin iyagoo aan qarankan isla xisaabtanka uu mudan yahay in isla xisaabtamo runtii meel iskaga tiiriyo u arkaba inaan lala xisaabtami karinba waxaan u aragnaa isla xisaabtanku waa muhiim cid kastoo qarankan dhibaato ku wada in talaabo laga qaado waa jecelnahay waxaase muhiima in mas'uuliyiinta qaranku marka hore iyagu ay iska moosaan dhaliilaha ay leeyihiin iyo xadgudubyada dastuuriga ah iyo kuwa shuruucda dalkan ee ay maalin walba ku tumanayaan marka waxaan leeyahay wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiir تعديات الصحافة كويسان تعديات قرن كان يدك كويسان أي كو كته إذا عدي قرن كأولا هذا ما أكون مقنت هي أنا لجرانين إن هرت بالكتش وطل مير كتير سان تاسو قرن كده كسبيا هدي أي كلفتنا رنتي وحنا قندونتا إن تعود لغفرة وإذا عدى سيا مسؤولية دي عدة له ما أنت لقى حسابتهم شعب جنا رنتو حنو بندقينا إن أي عندها كلا فران أو بحناها أي مسؤولين حكومة الشيء جارنتي أي وحسكوا يدينا هذا مدحونه حاسو شيء جاي وحاس حاجة كم بعدين runtii ilaa hadda maan arag cid wax iska weydiinaysa laakiin maanta waxa ka fursan weydii maadaama wasiirka wasaaradda warfaafinta uu deen waayay juqaynta iyo in eedo xad dhaaf ah oo runtii iyadoo aan hay'adihii cadaaladda la marin iyadoo aan go'aan maxkamadeed laga soo saarin banaanka lagu sii xukuumadda dadka oo la yiraahdo waxa sameeyay runtii inay tahay mid ayaan dareereeda lagana xisaabtami doono axsaabta mucaaradkana imika wixii ka dambeeyay runtii ay u soo jeedsan doonto inay mas'uuliyiinta qaranka runtii kula xisaabtanto dambiyada iyo dunuubta ay gelayaan iyagoo runtii aynu ognahay in qarankan leeyahay hay'ado qandaraasyada bixiya aynu ognahay madaxweynaha laftiisa iyo shuruucda dalkuba in qandaraas in la bixiyo nidaamka qandaraasyada loo maro mashaariicda ay ahayd in meel aliyaala meel lagu tiiriyo idaacadii qaranka aynu ognahay maanta in FM yaro kooban ka shaqeeyaan gobolada runtii ahaydna maanta in ay ka hortagto idaacadaasi propagandada idaacadaha kale ee dalalka jaarka runtii ay dalkan ku maamulaan ku haystaan runtii maanta dadweynaha loo dhageystaan laga hortagi lahaa in maanta aynu u idaacad laanahay ilaa haddana meel iska weydiiyay iyo meel ay ku maantay idaacadaasina aan la garanayn arinta labaad runtii waxa weeyaan in doonayaan ka hadlo in dalkan sidaan soo sheegay wuxuu soo maray maraaxil kala duwan waxa laga soo qaaday meel hoose in ognahay
dal burburay dagaalo sokeeye iyo dagaalo rejiimkii lala galay runtii ay ka dhaceen alxamdulillah maanta halkii ugu wanaagsan marayna marxalad fiican baynu ku jirnaa hase yeeshee taasi kama maarsanayso in la iska weydiiyo haykalka dawladnimo iyo nidaamka dalkeenani runtii uu ku socdo marxum allah u naxariistay maxay xaaji ibraahim rigaal oo maanta dadka reer Soomaaliland tacasub dirayaan wuxuu ahaa aasaasihii hay'adaha qaranka wuxuu ahaa aasaasihii axsaabta siyaasadda sababta loo sameystay waxay ahayd in ay dawladda daba galaan in ay dawladda saxaan in ay dawladda challenge gareeyaan ma aha in loo arko axsaabta qaranku kuwa duulimaad ku ah kuwa maanta dalkan ku wiiqaya magaca iyo maamuuska ay leeyihiin runtii maadaama dastuurka Soomaaliland jideeyay axsaabta siyaasadda maadaama xeerarka dalkuba ay damaanad qaadeen runtii in axsaabta iyo muwaadiniintu maanta xaq u leeyihiin in dawladda challenge gareeyaan ma aha runtii in laga gudbo waxaan ognahay maanta hadaladii ugu dambeeyay ka soo baxay taliyaha booliska maxamed saqadhi ka saabsanaa musharaxiinta la xiray iyo kuwa lagu raad joogaba runtii inay yihiin ama ay u muuqdaan kuwa ka baxsan ama la buunbuunin ama intii ay ahayd runtii la dhaafinayo cid diidi karta cid dalkan gaf ku sameysay in loo yeero in la dacweeyo in la maxkamadeeyo runtii ma jirto haseeshe waxaan u aragnaa in marxaladda aynu ku jirno in la siyaasadeeyo in laga dhigo platform loogu taageerayo musharaxiin platform lagu wiiqayo musharaxiin runtii inaan laga dhigan platform lagu taageerayo xisbiyada qaarkood ama xisbiga xaakimka lagu wiiqayo xisbiyada mucaaradkaana runtii inaan laga dhigan waxaanu ognahay oo maanta aan indhaha inaan ka qarsan karaynin warbixintii ugu dambeysay ay soosaf ka soo saartay xaaladda booliska waxaynaan indhaha ka qarsan karin warbixin ay ka soo saartay kuliyadda xalinta khilaafaadka Soomaaliland hal degmo oo kamida degmooyinka Hargeysa xaaladda boolisku inay u baahan tahay runtii in wax badan laga qabto taasi macnaheedu kama dhigin in booliska la wiiqayo waxa muhiimadu ay tahay in daraasaadka iyo dhacdooyinka maalinlaha ah in wax laga barto oo horumar laga gaaro sida ay Soomaaliland maalinta ka dambayso horumar u gaarayso halkii ay taagneed uga hana qaadaysantii baa loo baahan yahay in dhacdooyinka ku gadaaman hay'adaha sharciga sida maxkamadaha iyo booliskaba warbixinaha laga soo saaray iyo macluumaadka runtii laga helo in horumar laga sameeyo in la siyaasadeeyo anagu ma aragno cid maanta ka weyn sharciguna ma jirto cid aliyaal cid gaf ku sameeysa dalkan in talaabo laga qaado xisbiyada mucaaradka way soo dhaweynayaan gaaraan xisbiga wadan way soo dhaweynayaan haseeshe waxa la yaaba waxa maanta aan la aqbali karina in dad musharaxiina oo ka tirsan xisbiga xaakimka runtii oo xilal ka soo qabtay xukuumadda Soomaaliya aynu jaarkana runtii ay maanta kamid yihiin musharaxiinta u tartamaysa xisbiga xaakimka oo cid aliyaal cid wax ka qabanaysa cid wax iska weydiinaysa toona aan jir marka ma cadaalad ba sharci ba in axsaabta mucaaradkaana musharaxiintooda la eedeeyo oo inta la qabta la xiro kuwii ka soo jeeday xisbiga xaakimka runtii ay maanta iyaguna ay u ololeynayaan ama ay si nabada ololahoodii u wataan hawshoodii waxaan booliska runtii kula talinayaa in cadaaladda in lagu dhawaaqo in cadaaladda in la magansado aanay xisbiga wadan iyo axsaabta mucaaradka toona cidna uga magasanaynin xisbiga wadani waxa uu gacanta ku haya dhowr iyo 10 dhacdo dhowr iyo 10 kiis oo hay'adaha sharciga ah maxkamadda aanu gudbin doona runtii taasoo la xidhiidha musharaxiinta xisbiga xaakimka hadday noqoto kuwa Soomaaliya xilal ka soo qabtay iyo hadday noqoto kuwa shuruucii loogu talagalay doorashadaba runtii aan buuxin maadaama ay dhinaca xukuumadda ka timid runtii in gacan togaaleeyo ama la xidhxidho ama la eedeeyo ama la baacsado musharaxiin kamida axsaabta mucaaradka xisbiyada mucaaradka runtii sidii maalintii dhoweed baa u soo saareen waxay diyaar u yihiin hadday noqoto sharci iyo hadday noqoto in miiska wada hadalka la isugu yimaadaba in la wada xisaabtamo la wada hadlo wixii xaqiiqo ee jira runtii meel la isla dhigo runtii waxaan ognahay daraasad ay soo saartay ama xog ururin dhawaan warbaahintu ay baahisay oo lagaga hadlayo runtii isbarbardhiga xaaladda nidaam ama xaaladda maamul xukuumadihii hore iyo xukuumadda runtii waxaan ognahay walaacyadiisa soo taray ee maalin walba hooyooyinka warbaahinta ka hadlaya ee ubadkoodii iskuulada ku jira inta la xidhxidhay runtii ilaa hadda loo laayahay ama loo diidan yahay in ay booqdaan inay u tagaan
inagu xalay u dameysay arkaynay waalidiin ka hadlay ardaydoodii oo xiran maxaad u malaynaysaa marka siyaasiyiin maanta xuquuq leh oo dalkani xaq u siiyay inay tartamaan inta la xiro loo diiday in la booqdo loo diiday in loo qabto lawyer waxaan u aragnaa arrimahaas oo dhan inay majara habaabinayaan nidaamka doorashooyinka iyo sidoo kale nidaamkii dalkan uu ku hana qaaday ahayd in la isla xisaabtamo in runtii sharciga iyo nidaamka la isku soo maro waxaan runtii inay kaga bixi lahaa cid walba maanta xaaladda aynu ku jirno way ogtahay xaalad doorasho aynu galnay diyaar bay u tahay cid walbaaba sidii doorashadaasi nabad inoogu dhici lahayd sidii natiijo wanaagsan uga soo bixi lahayd runtii in gacmaha la isku qabsado oo laga wada shaqeeyo haseeshee waxaad moodaa in arrintaasi ilaa hadda ay u muuqato in laga doorbidayo in la abuuro jawi ka duwan jawigaasi runtii maadaama oo xadhig marxaladda aynu ku jirna aanu xal ahayn waxaan u aragnaa in xalka laga keeno arrimaha musharaxiinta xidhan kuwa la baacsanaya runtii la joojiyo dambiile qofku goormu noqon kara sida wasiirku hadlayay waxaad moodaa inuu xukumayba iyadoo aan la xukumin eriyada caynkaas runtii waa kuwa walaaca abuuraya xataa in lagu kalsoonaan kari waayo natiijada ka soo bixi doonta dadka xidhan haddii sharcigaba la hormariyo haseeshee waxaa su'aal tahay oo aan kaga jawaabaya arrintaasi haddii qaasim lagu eedeynayo xamar buti uu ka soo jeedo wasiirku gobolka sool waxaa imika ka sharaxan xisbiga kulmiye nin la yidhaahdo cabdiraxmaan xaaji ismaaciil ninkaas wuxuu ka ahaa baarlamaanka soomaaliya xubin muddo ka badan 8 sannadood waay qaasimna loo xidho loogu eedeynayaa safar uu tegey wax ka dambeeyay ama wuxuu safarka u tagayna aan la garanayn maadaama muwaadiniinta Soomaaliland maalmo walba xamar ay tagaan dana gaar u leeyihiin ka soo qabsadaan ninkii ka sharaxnaa xisbiga kulmiyana maanta uu ololeynaya oo ilaa hadda aan talaabo loo qaadin waanigi warbixinteeda ku daray in axsaabta mucaaridkii dacwad la mid ah ay xukuumaddu ka furatay musharaxiinta aan buuxin shuruudii ama musharaxiinta loo arko in qarankan ay deegaf ku sameeyeen runtii wadada ay u mareen oo kale loo maro xisbiga wadani ugu yaraan 12 kiis oo ku saabsan musharaxiinta xisbiga kulmiye ka dhanka ah bay u gudbinayaan garsoorka waxaanu qabnaa oo doonayna marka maadaama oo xukuumadii deen weeday in ay iyaduba dacwooto in dacwadaasi xisbigu gudbinayna runtii cadaaladda aanu magan u noqono garsoorku runtii dhex ka noqdo uu dacwadaasina ajiibo isla markaana ku oogo sida loogu oogay axsaabta mucaaridkaaba haday noqoto kuwa aan shahaadooyin haysan oo u badan xisbiga kulmiyeen ognahay iyo haday noqoto kuwa Soomaaliya xilal ka soo qabtay xilba kama soo qaban kuwa imika u xiran axsaabta mucaaridkii kuwii xilalka ka soo qabtay hay'adaha qaranka Soomaaliya ka tirsanaa xilalka hayay ba maanta kulmiye ka dhaxololeynaya ka sharaxan ilaa haddana aan talaabo laga qaadin